الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مركا كواد وبقادين يوم هاد علن لكن كهر شكير حدا كهرة وحد على ويل يا وحج على هذا الجبر آد يوجع على هذا الجبر إنه كورس دور ربع لكن وحا لا يبنى خطة جبردي هو يا وحي هاد مع ما آد وبيلدر وجبرد مر والبير على الصه ويلك وحوح الله إنه جبرد لكم لا شك يستو سكان سوا لكن مع ماذا يا بيرتكون وقته هذا ما هذا ما هذا ما وين ما يكون تاجنت marka xeelad mirsamay maalinka dambe wuxuu soo xirtay dhar habeen wuxuu soo xirtay dirac iyo waxaana soo xirtay maamad duq iska dhigay uu soo xidhay ul ayuu soo qaatay wuxuu imaaday imin barisa maamadii iyo gabadheedii oo guriga fadhiyaan ayuu imaaday markaas ayaa wuxuu weydiiyay nafaf ay oo ka dhumeen inta codka yariyay uu iska soo dhigay dumar ayaa wuxuu dhahay fiicantiin ma aragtay nafaf arag iga soo dhumeen markaas waxa la maya ma arkin markaas ayaa wuxuu dhahay dhulkan hor u socaalay meelaha ka firfirso markaas ayaa wuxuu maxay jireen wuxuu dhahay dhulkan ma garanay qof itusiyo ma la helaa maamadii ayadoo gabadhii aad ilaalin waxay dhahay anaa ku raaxaysan oo bixi oo ku soo tutusinaa maamada ayaa soo raacday taka basal soo qaadatay soo daba kacday markay laba geed ay xaka mareen ay intuu ku soo kala firiyay cirka ka keenay maamadii oo dhulka la galay markaas intuu ku kor firiistay uu hadana ku soo u daray maamadii oo boorkii iyo caradii iyo siigadii ka da'ay waxyaabo kale ka da'ay waxay ku soo noqotay gabadheedii gabadheeda ay ku soo laabatay markaas waxay dhahdeen hooyo ani maxaan raacay had markaan ka tagay ani maxaan raacay markaas waxay dhahdeen maama duqa hor u raacday ma yidhahda ani maama ma raacay ani maama ma raacay waxaan ku soo wataa 2022 min governor senator ilaa MCA anaga maxaan raacnay intaas waa taas tan labaad aniga magacayga waxaa la dhahaa Cabdinaasir Aadan dhalinta waxay ii garanayeen Balozi waxaan u tartamayaa xilka aqalka baarlamaanka hoose ee MCA loo yaqaano waa beri dhaqamo badan oo hadda noo muuqdaan ayaa waxaan rabaa wax badan inaan ka bedelo oo ay ka mid tahay midnimada bulshada isku xirka wada tashiga wada shaqaynta iyo hadallada xanafta leh oo aan loo fiirsanin oo ummadda kale iskaga dhex tuurayo waxyaalahaas iyo waxyaalo kale fara badan ayaan doonaynaa inaan wax ka bedelno ugu dambeyn Mheshimiwa Ahmed Ibrahim Abbas waa nin la wada garanay waa nin soo shaqeeyay waa nin experience ku filan leh waa former MCA waa speaker former MP thank you former MP maxay jireen speaker oo soo maray dhalin fara badan oo Soomaaliya wax buu u qabtay masalaani anagoo weligeen aanan arkin laami oo dhab inaan ka maqli jirnay ninkii keenay oo ku caanbaxay waay saas darteeda Mheshimiwa Ahmed Ibrahim Abbas wuxuu ku leeyahay annaga haddaan nahay dhalinta Soomaaliya oo aana ku dhex jirno dhalinta oo engagementka iyo wax walba aan is ognahay waxaa naga filanaysaa rajo weyn insha Allah diyaar ma nahay okay salaam alaykum salaamina dhalinyarada Soomaaliya waxaan sheegnaa mashruuc bishaar waan qaadnay dhalinyarada intaan hay soo dhawaad codka dhalinyarada reer maxamedka ayaan ku hadlayaa
annaga diyaar baano insha allah waan qaadayna waana soo dhaweynayna kariib wajmo marka soo dhawaada السلام عليكم أبا أفرح سنة أنت رجليرو إماتو قبلها ويليشة أنا أفرح سنة أنا أفرح مليئة بإنان حق الدقيق عليه لكن رجليرو أستاذ هذا يقول دري وأنا أفرح سنة هاي أنا هرب أسوق على بشار هذا رجليرو أنا أوكي إنه لك لما أرمينينا حتى ما شاء الله إمات رجليرو لو يري رجليرو هرب ترسون أنا ما قال بشار وحي عن خطر لهاي وزير هرب يقبضوا marka inta la sheegay ma aha wax iska amaana ugu soo qabtay ninkan ani alxamdulillah ruux markaan qaaday waa u istiqaarasay ilaahay bariya bishaar mar baan soo dhisay imbiinimadi markaan soo dhisay weere inkastoo wadankan ka maqnay oo difaac kale ku jiray haddana waxaan ii sheegaa ninkaas waa soo qaadne inina waa nala qaado ku maasantiin talweynaha gaaris waxaan u sheegaa in badan baa ani meelaha aan joogo iyo magshan lacba waxay u rifaadiyeen maxaa mala soo istaagaysa ka fare maanta waa soo istaagnay reer gaaris aan u sheegahay إلهي إلهنا وان قفر مشوان كنا قرينا عبسنا كما قمنا سجل سلمة أو إنه كتير يعني تعال هاي وأرجع سوى مجرته هذا دارس عن الشيء أنا قفر واحد إهان أو نسوري مجره إن شاء الله وانا قرينا واحد ميرا لقى الشيء هم ملايين إلهكم دارون أنا قلنا من قربنا مركا أنت أصلا خصوصا قاعدين وحلا وقت دكتور سكوير فربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baad u mahadsantihiin maanta maadaama aan iskugu imaanay kulankan aadka u weyn anigoo ku hadlayo afka xasan cabdikariim waxaan halkan ka sheegaynaa inaan garab u nahay madaxweyne Axmed Ibraahim Cabbaas reegaarsna baaqa u dirayna waxaa waaye waxaan leenahay governor waan ka mideysanahay hadaan dhalinta xasan cabdikariim nahay dhalinta reegaaris dhammaanna waxaan garab u nahay madaxweyne Axmed Ibraahim Cabbaas insha Allah taala marka dhammaantiina inta baan idin sheegaynaa taasana ka mideysanahay waani salaamay السلام عليكم أنا جرس ما والسيتين ما في عتين أنا أرتو حكى لي روا من نمو سو مهمها horta marka hore waa inaan madowno wax samooda ka hoosan inayna deeqin isku raacsanay waayo waxaan samoodalnimo ku wayne qoys kuma helayno kormaan hadla wixii aan samoodal ku wayne qoys kuma helayno soo marka hore horta waa inaan madowno waliba qaasatan dhalinyarada waa inaan madowno midnimo ka dambe qofka waa inuu dhiso ama raaco ama soo taageero qofkii uu heli karo soo saamaha qof aad aragto iyo qof aad arkaynin way kala tahay soo ma bishaar wax badan baa laga sheegay waxaan noola sheegay inuu MP ahaa laamiga ugu horeeyay ijaaraan inuu asaga noo sameeyo soo wax lagu faana maaha meelo qaar waxaa jirta hadda MP laga soo doorto xitaa aan laami qabin annagana 2013 markuu bishaar soo galan laami helna horta dadka wax baan ka dheerna marka ma hadda bishaar iska leh waa inaan taageerno garabaan u nahay har iyo habeenna inaan garab istaagno walaalnimo tusno meesha waxa leeyahay cidda isku sheeg kulli waxaan u maani gaaris aad baa liga yaqaan ani waxaan ahay nin baha nin aad Cabdallah marka bishaar garabaan u nahay geedi socodkana ilaa marka u dambe waa inaan taageerno marka hadda wadaan kala carari doonaan hadda aan iska dhaafno walaalkeen aanan dhibin soo saamaha quruufeedeen meelahaas aan la iimaanay qofka haddaan raacayno waa inaan midnimo walaalnimo aan ku dhisno waayo meeshan qoysas badan baa nala degan nin walbana wuxuu soo noqday governor nin walbana waxaan ka helnay waan naqaanaa marka tookadan annaga iska leh bishaarana iska leh tan kaloo idin sheegayno waxay tahay kolley haddee samoodo ilmaadeer way isxamataa soo maha soo ilmaadeer isma xamato haddee abakor haddaan soo qaadnay MPga aan soo qaadnay gabanaha sheekowna inaad u taam dhahdaan calaykum salaam
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhalinyarada Soomaal gabdho iyo wiilal international iskugu imaatay madaxdeena wixii meeshan jooga Bishaar Ibrahim Abbas dhammaantiin waan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta wax ammaan oo u dhiman hadda Bishaar oo aan ku dari karo ma jiro, waa la bogay. marka waxaan leeyahay dadka waxaa la qadariyaa ninkii ku qadariyo oo fadhigaada intuu fadhi ku dhigto ku yeero oo ku xushmeeyo oo wax ku weydiisto. marka ani waxaa ila quman ani hadda Bishaar aqoon dheer uma lihi markaa runta ka hadlo, laakiin waxaa igu filan inta la sheegay oona muuqato. marka waxaa ila quman Bishaar inaan garab siino, aan taageerno, aan garab istaagno sifo uu wax noogu qabto mar labaad iyo mar saddexaadba. waxaan leeyahay Bishaar karibu kwa dhalinyarada Samoogal, soo dhawow, waan ku qaadaynaa insha allahu tacaala. saasaan oola baxay magaceygana waa Iftiin Xuseen Aadan. بسم الله الحمد لله إلهي ما تسكله إلهي يرفع عظمتكم ونار مسؤولية كيني إلهي وكسر نوت النبي صلى الله عليه وسلم وكسرنا أنا قلت وحاولي مع عبد العزيز وحان شيخ كاهي حافظ أبو رجال الليلة وحان شيخ كاهي حافظ أبو رجال أنا كوحان لنا هاي من كلمة ما جرته maanta noo kow ah waxaana leenahay ninayda waxaa la dhihi jiray nin af Soomaali yaqaano nin af Soomaali yaqaanin kani af Soomaali yaqaano aan qaadanayna. waayo anaga waxaa la dhihi jiray anaga reer Burajaar asawnahay weligaan waxaa la dhihi jiray nin gafana oo waxaa la dhihi jiray nooyeeti ma jirto oo ka ahayn adeerkay Bishaar. adeerkay Bishaar waa lagu ammaanay, laakiin ana ka taray masalaani madin gaarisaanahay waa lagu ammaanay. waxaa lagu leeyahay wax baa qabatay, inta qabatayna waa lagu sheegay ku celcelis ma lahan. anaga waxaan leenahay haddaan nahay dhalinta Burajaal youth waxaan leenahay adeerkan Bishaar waan qaadnay tano fresh. adeerkan Bishaar tano fresh adeerkan Bishaar tano fresh insha Allah. muddo kale oo korminayna maxaa waaye kuraha aan goosano kuraha waa la goynayaa. gafana wuxuu ka dhici furan buuyaal ku banaanay ma ahan waxaan la dhihi jirin ama ijaaro uga dhaca ama gaanis uga dhaca. gafana wuxuu ka dhici furan buuyaal ku banaanay tariiban because waan sii qaamnay waan soo istaagnay in badan ayaan dad dhis jiray. maxaa anaka loo diiday in waxaa la dhihi jiray oo gafana u istaago county maxaa naga reebay. adeerkay Bishaar oo mahadsan tahay khayr Allah ku siiyo wixii qabatayna waa qabatay. waxaan ku leeyahay dhalinta Burajaal aad waxaa la dhihi jiray buudoonayaan ilaa waxaan rabaa lambar kala qaadano aniga adiga oo saxadino meel wax soo wadayno. Bishaar tosha Simba siasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. oo dhalanta Shantal Ibrahim masalaha magaciidan uu yahay Geedi Muumin Axmed. waxaan ka tashanay masaan ka mideysanahay Bishaar Ibrahim Abbas inuu yahay gafanaha Gaaris una soo galay insha Allah bidilaahi kariim. Assalamu alaykum. annaga ana kulay meel fagaar laga sii hadlay ma garanayo iska online mujaahidiin baan iska nahay meel wax lagu qoro moogay meel fagaar kama hadalna inta badan. marka horta gafanaheena cusub ama Samoogalka uu soo qaatay ama dhalinyarada mise dumarka la isku wada raacsan yahay waa Axmed Ibrahim Abbas. Axmed Ibrahim Abbas waxyar haddaan background check-up kiisa bisa idin suubiyo biography-giisa. horta nin MB soo uu ahaa
nin speaker soobuha inta yareed oo waqtiga siyaasadda ku jiray wuxuu samooyalka u qabto la garan waa wax aan lagu soo koobi karin in meel laga sheego marka waad garanaysiin oo maleeya samooda dhalinyarada hadda xaaladda say tahay ogsoona 2022 aan noola imaaday wuxuu noola socdo nin qamiis qaba noola keeno iska socdo qamiiskiisa hadda lama fiirinaata waa noola keena waxaan halnahay sisi ka maasabadan waxaan coalition la galnay cid fulaan marka coalitionka samooda kale la galay agreement la kala qortay jiro Afrika dada ugu sameeyay waxaa kamid ah wax walba ama shaqo ama contract misa laga helo dawladda waqtiga iyada ku jirtay oo dawladda cali guriyay in noola project gareynay ama ay naga luuyin waxyaalo kala fara badan aan u doonay hata hay'addu bitar miisaan markuu nadiif soo galay bishii sideedaad bishii sagaalaad 1200 oo samoodan oo professionals oo dhalinyaro ah qaarkood ka fadhiyaan hadda narkayo shaqada laga fiiray dhalinyaradii hadda 3 sano ay sii haysaa markaan xisaabnay waxyaalihii ay qaadanayeen mise wajeeska mise lacagii ay qaadanayeen markaan dib ahaan gadaal u sii baarnay dad samoodan madaxdiisa ka mid ah coalitionkan hadda ugu jira soo dhisay inuu qaadan hayaan ogsoonahay dhalinyaro maanta mise beri waana imaani doonaa wixii lagu socdo sisi kama samoodan sisi kama juuya ogaadeen waxyaalahaas aan ugu imaani doonaa tii 2022 ugu dhacday ka darnaan ugu haysaa hadda marka ridda laga xiranaysa wax lagu hadlayo male kabtaan rabto qabaan ugu dhihi soo marka hadda aan digtoonaano anaga hadee Shantal Ibrahim saawnay meel bay ushayna ka jaran tahay lama soo dhaxgali kara anaga iyo Ahmed Ibrahim Abbas way ka jaran tahay marka bal dhalinyarada samooyalka waa ogtiin baahida jirta shaqo la'aanta jirta waa ogtiin oraxda soo kula soo ogtiin Soomaalidu waxay tiraahdaa ushaada ninkaad ka qaadan kartaa loo dhiibaa haddaan maanta intaad nin aad garanaynin ama si 2022 ku soo yeela aad u dhiibato haddii rid eega laga soo xirtaa adinba ka su'aal hataa kuma hadli kartiin qaarkiina waa isogna marka hadda waxaa la degtoonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh annaga waxaan ka hadlaynaa iyar oo kooban annaga waxaa way hadda saacaddan dhalin ma nihin duqayna ma nihin dhalinyaro ustaada dhexaha iska nahay in Ibrahim Abbas aniga aqoon uma qabi laakiin abiisa aqoon qaba aad baan u garanaa nin 8 bilood kali ku jira baarlamaanka oo ku taga gaaris ilaa Singayl maaram gaarsiin laami berigaas aaje naga waxaan kaloo dhaqanaa looba saca hoortay markuu dhalo qaalintiisa caanaan ka filanaynaa warsi hebel ayaa dhalan qaalin waa caddakeene maanta xaaladdeed ka warramaa la leeyahay caana baan ka filan insha allah ilaahay du ka raalli noqdo inuu noo caaniyo intaa waxaa ka gudban annaga inuu kaa cabasadna dooran rabno waxaan dooranaynaa samoodan waxaan samoodan maad kursiga gafana waa u baahan aad ugu baahanaa nin u qalmar asaa jira naftayna annaga naftay culummada markay wax dheesaa naftaada ka qaad naftaa u qaad gaaris maanta waa naftaa ka qaad naftaa u qaad kuura iyo xandhaba inaan iskugu daro in Ibrahim Abbas maanta uu soo daro dantaa inaa ku jirtaa dantii isku jirtaa sar عرفتي أن قاد لها محد بي دمج سيامل سنة بشار وان فوق النابة إنديا فصول سنة سرجائي إيه فصول سنة ها بشار إيه فصول لنا إيه يدي قبل هاي كريبوري سورة الباب ما حاضر وكوفرين نود نكون بلدين نود نكون يبعتين حتى واحد روي معنا وأكرسين وحلا واحد أكتر وما شجع بشارة عن هذا كنت في هاي زمان ما أنا هقول البيصة يلا ما تحسوا إيه ناوكلي بشارة أنا هذا صفي عني أبدا يموت بشارة وانكم بعين الله وكذا
hadalka iskuma sii fiicnin anigoo matalaya dhalinyarta Shantalis Ibrahim hortaas sadar muuqda su'aal ka dhan ninkan amaantiisa su'aal way ka dhan tahay wuxuu qabto way muuqdaa qorax soo baxdana sacabo laguma qarin karo ninkan dib uma laabanaya ha la hor istaagin Bishaar waa adeerkay barna waa abtigay wax qabadkiisana waa hubtiin oo nin maanta la idin amaanayo ama amaan la samaysanayo ma aha wuxuu qabtay ummadda way hortaala marka dhalinyarta samoodan waxaa leenahay waan ku qaadnay hanugu soo laawan waan ku wanaay xadka magaalada way iska badan tahay hoobkeena tahay samooda way naga go'an tahay taamkan inaan kursiga u rolano walaaladana kalena magaaladana la degan ogaadeenka kale magaaladana la degan qabaayisha kale waxa leenahay waa idin lisne saa idin kugu lisna noogu hambeeya xilligiina waa idin dhisnay waa idin sacbinay xilligaani waa la gaaray noo banay goobta tuko kadi vijana tuko kadi kura kwa Bishaar أنا أقول لك أتك دنيرة بيش سليمان عبد الله أحمد إبراهيم عباس وأنا قادني وأنا كنت دورنا هنا وأنا تسودني بين الله الكريم